Assalaamu calaykum. Waxaan idiin soo gudbinayaa qiso aad iyo aad cajiib u ah oo aan hubo inaad ka wada heli doontaan. Waa mid ka mid ah qisooyinka faraha badan ee ku soo arooray Quraanka Kariimka ah ee Rabbiga nooga warramay si ay noogu noqdaan cibro iyo waxaan xaqa iyo baadilka ku kala garanno. Waxaa laga yaabaa in dad badan oo annaka naga mid ah ay qisadani maqleen laakiin ayna faahfaahin iyo macluumaad dhammaystiran ka haysan. Waxaan isku dayi doonaa inaan qisadani u soo gudbiyo si dhammaystiran laakiin kooban. Talow qisadani waa qisadee? Waa qisadii asxaabul ukhduud ama dadkii markii ay Ilaahay rumeeyeen nolosha lagu gubay. Ma ahan qof iyo labo, waa dad dhan oo nolosha lagu gubay. Waxay qisadeenani ka bilaabanaysaa waxaa jira nin boqor ahaa oo meel ka talin jiray. Wuxuu ahaa nin sheegtay ilaahnimo oo dadka maquunin jiray. Wuxuu lahaa nin sixiroole ah oo wax u faaliya oo la shaqeeya. Ninkii wuxuu gaadhay da' ama wuxuu noqday oday. Wuxuuna u imaaday ninkii boqorka oo uu ku yidhi, boqorow, waad aragtaa inaan anigu gaboobay. Waxaana soo dhow ajashaydii, waxaan rabaa inaad ii keento wiil aan kuu baro sixirka si markii aan dhinto uu isagii kula sii shaqeeyo. Boqorkii wuxuu amray in la soo raadiyo wiil deggi ah oo fahman badan oo cilmiga sixirka ka neyb keena oo si fiican u barta. Magaaladii baa la dhex galay, waxaana la soo helay wiil yaroo aad iyo aad fariid u ah oo fahmo badan oo loo gartay inuu kasoo bixi karo hawshan. Wiilkii ayaa loo keenay boqorkii, waxaana wiilkii loo sheegay inuu cilmigan barto dhowaana uu darajo fiican ka yeelan doono boqorka agtiisa. Wiilkii wuxuu bilaabay inuu barto sixirkii, wuxuuna aadi jiray subax waliba ninkii sixiroolaha si uu uga barto wax. Waxaa dhacday in marka uu jidka u sii socdo wiilka uu arko nin raahib ah oo meel jooga oo Ilaahay caabudaya. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu ku leexday oo uu la kulmay oo uu ninkii odayga ahaa ee raahibka ahaa la sheekaystay. Wiilkii waxaa qanciyay oo farxad geliyay hadalladii iyo dhaqankii iyo sheekadii ninkii raahibka ahaa. Wuxuuna bilaabay inuu mar waliba uu ninkan raahibka ahaa u imaado. Waayo ninkan raahibka wuxuu ka sheekaynayaa tawxiid, Ilaahay iyo diin iyo wax xaq ah oo nafta u roon ayuu ka sheekaynayaa mar waliba. Wuxuu samayn jiray maalinka wixii ka dambeeyay wiilka aroor waliba marka uu ninka sixiroolaha u socdo wuxuu ku leexan jiray ninka raahibka ah. Ka dambe waxaa dhacday in wiilkii uu ninkii sixiroolaha subax waliba ka daaho. Wuxuu sixiroolihii bilaabay inuu wiilka kolba ciqaabo oo uu qaraaco. Sidoo kaleeto markuu sixiroolaha wiilka kasoo laabtay ee cidda aadayana wuxuu ku leexan jiray ninkii raahibka ah oo wax ka dhagaysan jiray. Haddana ciddii ayaa lagu qaraacay oo la dhihi maxaa u soo daahday. Ninkii raahibka ah ayaa wiilka ku yidhi, waxaad samaysaa mar waliba oo sixiroolaha ka daahdana waxaad dhahdaa guriga iyo ciddaan kusoo daahay. Markii aad cidda kasoo daahdana waxaad dhahdaa waxaa i reebay oon ku daahay sixiroolihii. Wiilkii sidii ayuu samayn jiray. Ninkii raahibka ahaa waxayuu ka biran jiray, sixiroolihiina waa uu u tagi jiray. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in isagoo jidkii socdo uu arko xayawaan weyn oo dadkii jidka ka xidhay oy mari laayihiin. Wuxuu yidhi, maanta ayaan kala garanayaa xaqa iyo baadilka. Wuxuuna qaatay dhagax. Wuxuuna yidhi, ninkan raahibka ah iyo ninkan sixiroolaha bal mid walba wuxuu ku bari jiray maanta xaqiiji midka xaqiiqada ah. Dhagixii ayuu ku tuuray xayawaankii isagoo yidhi, Ilaahayow haddii aad ninkan raahibka ahaa iyo waxa uu sheegay aad ka jeceshahay kan sixiroolaha, xayawaanka dil. Dhagixii wuxuu ku dhacay xayawaankii, waa uuna dhintay. Sida ay wiilkii ugu xaqiiqowday in ninkan raahibka ah waxa uu sheegaya ay xaq yihiin, sixiroolahana wixiisu baadil yahay. Ka dambe wiilkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sharfay karaamooyin iyo waxyaabo la yaab leh. Wuxuu wiilkii markii dambe ahaa dhakhtar oo ma ahayn loo galay jaamacad iyo waxbarashe, karaamo Ilaahay xaggiisa ka timaaday ayay ahayd oo wuxuu daweyn jiray xanuunada waaweyn sida baraska, indhoolanimada iyo dhammaan xanuunada.
waxaa maqlay marka maalin maalmaha ka mid ah nin ka mid ah ragga la taliyayaasha u ah boqorka. wuxuuna soo qaaday hanti fara badan oo uu keenay wiilkii oo ku yidhi haddii aad indhahayga ii soo celiso waxaan ku siinayaa hantidan oo idil. wiilkii wuxuu ku yidhi war anigu wax ma caafiyo oo indho ma soo celiye, ilaahay baa soo celiye. haddii aad ilaahay rumayso ilaahay baan kuu baryay waa uuna ku caafin doonaa insha allah. ninkii wuxuu yidhi waa rumeeyey ilaah. wiilkiina ilaahay buu u baryay, rabbi ayaana ninkii indhihiisii u soo celiyey. ninkii wuxuu tegay qasrigii ama gurigii madaxtooyada. waxaa arkay ninkii boqorka ahaa ninkii indhoolaha oo socda oo indhihiisii qaba oo caadi ah. waa uu yaabay, wuxuu yidhi see wuxuu jiraa, yaa indhahaadii kuu soo celiyey? wuxuuna ku yidhi rabbigay. boqorkii waa uu xanaaqay, wuxuu yidhi ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay? wuxuu ku yidhi haa, rabbigay iyo rabbigaaba waa allah. boqorkii waa xanaaqay, wuxuu yidhi ninkan ha la ciqaabo. waa la ciqaabay. markii dambe ninkii wuxuu tusay wiilkii yaraa ee arrintan baray ee ilaahay ku xidhay. wiilkiiba haddana la ciqaabay. markii dambe isna wuxuu tusay ninkii raahibka ahaa. raahibkii baa lasoo qabtay, qoortaa laga jaray. ninkii kale ee ka mid ah la taliyayaasha boqorkana waxaa la dhahay ama diintan ka laabo ama waa lagu dilay. waa uu diiday, wuxuu yidhi kama laabanayo. waa la dilay. wiilkii yarkaa isna waa la qaaday, waxaa la dhahay diinta ka laabo. waa uu diiday. boqorku wuxuu yidhi wiilkan ha la qaado, buur dheer dhaladeeda ha la saaro, meeshaana ikhtiyaar ha lagu kala geliyo, ama meeshan baan kaa tuuraynaa ama diinta ka laabo. markii meeshii la geeyey wiilkii ilaahay buu baryay, wuxuu yidhi allaahuma kfinihim bimaa shi'it, ilaahu wixii aad doonto kuwan igaga kaafi. buurtii baa gilgilatay. nimankii waday ayaa buurtii ka daatay. meeshii ayayna ku dhinteen. isagiina ilaahay baa badbaadiyey. isagoo socda ayuu u imaaday boqorkii. waa uu yaabay, war awey nimankii? wuxuu yidhi ilaahay baan baryay waa ayna dhinteen, anna waa soo badbaaday. haddana wuxuu amray in la qaado oo doon la saaro oo badda dhexdeeda intii la geeyo ikhtiyaar la kala geliyo, ama waan ku tuuraynaa ama diinta ka laabo. haddana markii badda dhexdeeda la marayo ayuu wiilkii ilaahay baryay oo yidhi ilaahayow wixii aad doonto kuwan igaga kaafi. doontii baa la rogmatay oo la qallibantay. raggii la saaraa oo idinla meeshii ayay ku dhinteen. keligii ayuu haddana ilaahay subxaana watacaala soo badbaadiyey. isaga oo socda ayuu haddana u imaaday boqorkii. waa uu yaabay. wuxuu ku yidhi wiilkii yarkahaa ma waxaad rabtaa inay dishahaa? ima dili kartid ilaa aad samayso waxaan aniga ku amro. wuxuu yidhi waa maxay waxaad i amri wiilyahow? wuxuu ku yidhi waxaad samaysaa dadka magaalada jooga oo dhan isku keen, meel bannaan ha iskoogu keen, ka dambana leeb iyo qaanso soo qaado. waxaadna ku gantaa oo dhahdaa bismillaahi rabbi algulaam, waxaan ku ganayaa rabbiga wiilkan. sidii buu sameeyey. dadkii baa laysku keenay. wiilkiibaa geed lagu xidhxidhay. wuxuu boqorkii soo qaatay leebkii iyo qaansadii. wuxuuna yidhi sidii la amray ee ahayd waxaan ku ganayaa magaca rabbiga wiilkan. wiilkii meeshii ayaa lagu dilay. laakiin waxaa dhacday arrin cajiib ah oo uuna boqorku filanaynin. dadkii meesha joogoo dhan baa waxay ku qaliyeen oo dhaheen aamanaa birabbi alqulaam, aamanaa birabbi alqulaam, waxaanu rumaynay rabbiga wiilkan yar. wiilkan yaree mucjisada rabbigii baan rumaynay. boqorkii waa uu xanaaqay. wuxuu ninkii boqorka ahaa amar ku bixiyey in dadkan ciqaab adag la mariyo. wuxuu yidhi waa inaad u qotaan godad, aadna ka buuxisaan dab, dhammaantoodna aad ku gubtaan haddii aynan ka laaban diinta. qof waliba waa la qaban, dabka la kor istaajin, waxaa la odhanaa diinta ma ka laaban mise waa lagugu tuuri. laakiin dhammaantood waxay dhaheen kama laabanayno diintan. sidii ayay sameeyeen. dhammaantoodna dabkii ayaa lagu wada riday. ilaa ay markii dambe ka imaatay hooyo wadata ilmo yar. markii ay dabkii kor istaagtay ayay ilmihii iyo wixii ayay cabsi dareentay. laakiin waxaa dhacday arrin mucjiso ah. cunugii yaraa ee dhabarka ku wadatay een hadalba gaadhin baa hadlay oo yidhi yaa ummaah isbirii fa innaka cala alxaq. hooyooy samir,
waxaad ku taagan tahay xaq ee dabka gal, sidii ay ayadina dabkii loogu riday. Dadkii dhammaantood waxay ku qanceen in aysan iimaankooda bedelin, waxayna cadaabka aakhiro ka doorteen midkan adduun. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qisadani waxa uu kaga sheekeeyey suuratul buruuj, waxa uuna yidhi: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. haddaba ugu dambeyntii waa maxay waxa aynu ka faa'iideynaa qisadan? waxaan qisadan ka qaadanaynaa in qofka mu'minka inta uu nool yahay dunida jooga, haddii uu la kulmo fitno, loo baahan yahay inuu ku samro oo uu dulqaato oo uu diintiisa ku dheganaado. ma ahaan markii dhib iyo mashaqo iyo fitno imaato in qofka mu'minka uu gabado oo uu ka cararo diintiisa, bal waxaa la rabaa inuu ku dheganaado mar ilaahay mu'miniintii hore kuwii dhexeeyay kuwii dambaba waa uu ibtileeyey oo waa uu imtixaanay. intaas ayay maanta noogu eg tahay. haddii aad nagu cusub tahay ood ka heshay subscribe dheh. dhammaantiin ilaahay idin xafido. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.